بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلنتي wanaagsan walaalayaal meel kasta oo daafaha adduunka ka joogtaan insha Allah ta'ala ku soo dhawaada qisadii labaad ee walaalkeen Dr. Maxamed Abdi Jabbar qisadan insha Allah ta'ala walaalayaal waxaynu ka faa'iidi doonaa sida Ilaahay subhanahu wa ta'ala marka aynu qalbigeena toos ugu xidhno aynu Allah subhanahu wa ta'ala taladeena u dhiibano aynu ka quusanno makhluuqa iyo sidoo Allah subhanahu wa ta'ala inuu gargaarayo isagoo Allah subhanahu wa ta'ala mar walba inoo gargaara oo inagoo caasiyayna ina arsaaqa oo caafimaadkayna siiya oo inoo dulqaata oo aynu dulqaadka Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku noolnahay iyo fadligiisa iyo naxariistiisa haddana walaalayaal mararka culayska iyo mashaakilaadka qofka ay soo wajahaan dadku waxay u kala baxaan laba qaybood qof waxa uu door bidaa inuu makhluuqa ku cararo oo ama qaraabo ama dad madaxtinimo ku tuhmayo ama dad maal qabeena wuxuu makhluuqa kamida inuu cabashadii kula cararo waxaanay u badan tahay in qofkaas la quursado isla markaana arrintiisaasi sidii uu doonayay aanay u noqon ama waqti ku dheeraado laakiin qaybta labaad ee bini aadamka kamida waa dad Ilaahay subhanahu wa ta'ala arrimahooga u bandhiga rabbi isku dhiiba dhammaystiran yiraahdo rabbigayo waa ikan xaaladeeduna waa tan Allahna subhanahu wa ta'ala waa kariim adoon dhibaataysan oo gacmaha kor ugu taagay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku celin maayo marnaan qisadan walaalayaal waxa uu kaga hadlayaa walaalkeen Dr. Maxamed Abdi Jabbar qisadii ku dhacday ee soo wajahday caafimaadka xaaskiisa wuxuu dhakhtarku sanadku markuu haabiri 2004 xaaskaygu waxay qaaday buu yiri xaamiladii ugu horeysay waana xaas ugub ah gabadh ugub ay ahayd oo ilmihii curad ayay markaa urkiisii qaaday markii la gaadhay xaaladii foosha ay arinteedii aad iyo aad u cuslaatay waxaanu geynay buu yiri mid kamida dhakhaatiirta ugu fiican oo ay ka howlgalaan dhakhaatiirta iyo kalkaalisooyinka aadka loo amaano shaqo fiican ayaa lagu yaqaanaa buu dhakhtarkaasi wuxuu yiri gabadhii waxaanu geynay waqti galabnimo ah qiyaastii 4 galabnimo ama 10 saac oo galabnimo bacda العصر xanuunkii iyo fooshii haysay waxa ay noqotay buu mid aad u daran oo sakraad oo kale u eeg sakraatomoodkii oo kale ah oo daqiiqad kasta aan islahayn goorma ay naftu ka baxaysaa waxaana xaaladaasi haysatay buu yiri galabnimada maalinta aan geynay ilaa maalintii labaad waqtigeedii galinkii dambe labadii iyo barkii duhurnimo waa xilliga dadka qaar u yaqaanaan 8 saac iyo bar duhurnimo ilaa xilligaasi socotay buu yiri intaas indhaha kamaan qaadin buu yiri oo murugada iyo dhibaatada haysta waxay dheereed waa dul taagnaa buu yiri xaaladeedu inta dhan u dhaxayso dhakhaatiirtii waxay qaadan waayeen go'aan waxaanay markaa sugayeen xaalkeedu inta uu dhinacun u dhacayo ama ay geeriyoonayso ama arinteedu si kala noqonayso arinku aad buu cuslaa buu yiri xaaladdu markii halka marayso ee dhakhaatiirtu waxba qaban kari waayeen oo xaaladeedii la qiimeyn kari laayahay ayaa wuxuu yiri waxaan u tagay buu yiri markii saacadu ay xilliga marayso maalinta dambe qolihii dhakhaatiirta ahaa ee qaabilsanaa arinteeda iyo arrimaha la midka dadka qaybta dhalinka waxaan ku yiri buu yiri anigu waxaan ahay dhakhtara xaaskayguna waa bikro oo waa ilmihii ugu horeeyay uma dul qaadan kara baan ku yiri buu yiri xaaladeedu inay sidan sii ahaato waxaan codsanayaa in loo sameeyo qalliin surgery ah
camaliyad in lagu sameeyo ayaan codsanayaa buu yidhi weliba hadda si dhaqsaa wuxuu yidhi dhakhaatiirta iyo nersiska qofkii gabadhii ugu sarreysay buu yidhi gabadhaasina waxay gabadh muslimad ah iyadoo buu yidhi dareemaysa culayskay haysta ayay xaaskaygii u qaaday qolka saalada qalliinka waxaana igu tiri buu yidhi orod oo weysayso oo 2 ragcad tuko oo Allah subxaanahu wa ta'ala u bari in xaaskaaga Ilaahay subxaanahu wa ta'ala dhalitaanka uu fudaydiyo markaas ayaa xaalkaygii degay wuxuu yidhi markii aan qulubta ku xidhnay Allah subxaanahu wa ta'ala xamaamkii aan galay soo weysaystay 5 daqiiqo kadib waxa ay soo gaadhay buu yidhi arrin aan ku farxay waxay ogaadeen isla markii saalada la saarayba in xaaladda mushkiladan gabadha waxa ku hay ay ahayd in ilmuhu qalooc uu ku jiro ilmuhuna dib taqaanaana markuu qalooc ku jiro xaaladiisu aad u cuslaataa gabadha foosho ay hayso اللهم صل على محمد إلهي سبحانه وتعالى wuxuu u yasiray oo u fududeeyay gabadheedii inay dhasho oo inantii curdeed ee curada ahayd ay ii dhalato iyadoo caafimaad qabta oo aadna u qurux badan اللهم صل على محمد arinteedii murugadiina waxay isku bedeshay buu yidhi farxad walaalayaal qisadan waxaynu ka faa'iideynaa bini aadamku markii xaalad culus soo wajahdo inta badan way argagaxaan samirka waxa la yiraahdaana waa bilowga koodowga waa judda u horeysa marka geeri baa lagu soo sheegay ha qaylinin dheh inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un xaalad culus baa lagu soo sheegay haddii aad taagnayd horta fadhiiso kadib ilaahay xus subxaanahu wa ta'ala bari ilaahay subxaanahu wa ta'ala arrin kastoo culus oo ku soo wajahda qabso saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam oo ilaahay ugu dhawow oo ilaahay ku bari saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam gacmahaaga kor u taag adigoo ku celcelinaya saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam ilaahay subxaanahu wa ta'ala waanu ku dambi dhaafay murugada iyo dhibta ku haysatana wuu ka faydi insha Allah ta'ala walaalayaal taniyeentu barnaamij kale isku iimanayno waxaan idinkaga tagayaa astawdi'ukum Allah alladhi la tudi'u wadai'ahu fi amanillah wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh lana socda qisada walaashin kaltuun Umar insha Allah dhawaan aan soo gelin doono مرحبا ولا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد